jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool North America qaab noocee ah ayay isugu xiran yihiin ma gobolka hadda ay u degan yihiin ayay maaragtay isugu xiran yihiin mise gobolkii hore ee dalka maaragtay markii ay dalka Soomaaliya deganaayeen ay ka soo jeedeen ayay u abaabulan yihiin mise qabiil ahaan ayay isugu xiran yihiin qaab noocee ah ayay isugu xiran yihiin jaaliyadaha ku dhaqan North America أبغاني رun ahaantii su-aashaas waa su-aal aad u muhiim ah haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed hadday arrin positive ay ku fiican yihiin sheegay laakiin hal arrin ay ku liitaan ay aad ugu xun waxay arrinta qabiilka iyo qabyaaladda hadda waa ogtahay waddankeena markii la joogo Soomaaliya inta qabiilka qabyaaladda Soomaalida yani dhibaatada u geystay in waddankii qabiil iyo loo kala gudbooyay iyo wixii qabiil aan soo marnay aadan ognahay marka Soomaalida markay dibadahaas u soo hijroodeen weli waxaad moodaa in qabiilkii weli uu daba socdo qabiilkii ay wadaan marka ma waxay ku guuldareysteen inay sameystaan jaaliyad Soomaaliyeed oo kulminaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed qabiil kasta iyo meel kasta ay ka soo jeedaan inay jaaliyad midaysa loo sameeyo taas ma jirto waddankaas ay ku nool yihiin Mareykanka gobolkaas ay ku nool yihiin Yurub marka Soomaalida qaab qabiil bay iskugu yara xiran yihiin مثلا markii uu mas'uul u imaado mas'uul dawladda ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare uu soo boqdo markaas baa leeyahay la soo qabana hebel imaa laakiin ma jirto jaaliyad Soomaaliyeed oo shaqeynayso kulminayso ummadda Soomaaliyeed ee gobolkaas ku nool marka wali waxa dareemaysaa in qabyaaladii iyo wixii ummadda qabyaalad lagu kala qobqowaayay in wali ay ka jirto ama ay Soomaalida fikirkii qabiilka meeshana in la keenay laakiin ma dhihi karo maanta jaaliyad Soomaaliyeed oo functionable ah oo ummadda midaysa inaysan ma jirto waxay u abaabulan qaab qabiil Abdurraxiin su'aasha xigta barnaamijka waxay leedahay ma u malaynaysaa dadka maaragtay ku nool North America iyo guud ahaan qurbaha ee dalkooda kaga hayaamay colaadii inay ku soo noqon doonaan waddankoodii maadaama dhibkii ugu weynaa ee loo cararay dawlad la'aanta iyo maaragtay dagaalada iyo dhibaatada maaragtay halista amniga jirtay darteeda loo cararay haddana maaragtay yar la soo hagaagayo rajo ay muuqato ma u malaynaysaa mustaqbalka dadkii baxay oo dhan inay dalka ku soo noqon doonaan runtii abwaane maanta waxaan aaminsanahay 90% ummadda Soomaaliyeed oo hijrooday wadamaha qurbaha waxay rabaan inay waddankooda ku soo laabtaan qofkaas hadaa weydiisid wuxuu leeyahay mar uun waan jeclahay inaan waddankayga ku laabto kaliya waxay sugayaan ay dhigta u taagayaan in waddanka isbedel uu ka dhaco dawlad xoogan iyo amni in waddanka uu ka dhaco laakiin qof kasto qurba joog ah maanta runtii uu jecel in waddankiisa dib u soo laabto qaar waxa masleeyahay ayadoo weli xaaladda waddanka ay saan tahay way soo laabteen waddanka waxay geliyeen investment business ka furan maanta hadaa caasimadda xamar aad tagtid bay gobolada aad tagtid waxaad arkaysaa moolal business oo dad qurba joogta ay fureen maalgelin ay waddankooda ay gashteen marka qurba joogta runtii way rabaan diyaar way u yihiin in waddankooda dib ugu soo laabtaan kaliya waxay ka wardhoorayaan xaalka waddanka soo noqon doono waxaan kaloo aaminsanahay rabitaanka qurba joogta inay waddan ku soo laabtaan sanadahan ugu dambeeyay aad bay u xoogaysatay sababtoo ah sanadahan dambe waxaa soo xoogaystay dadka u dooda waxyaabaha loo yaqaan LGBT-ga LGBT-ga waa dadka u dooda ii sheegay in waxaan dhahno qoomoloodka ragga inay guursan karaan dumarka ay guursan karaan uu jiro jinsi saddexaad anaga muslimiinta waxaan aaminsanahay ilaahay inuu abuuray laba jinsi lab iyo dhadig laakiin ay waxay aaminsan yihiin in wax gay iyo transgender iyo waxyaabo badan marka dadku uu codeeyo fikirkan LGBT-ga ama qoomoloodka waxyaabaha hadda ay u doodayaan waxaa ka mid ah in fikirkan curriculumka iskuulka lagu soo daro ilmaha in la baro marka kaliya ma aha jaaliyadda Soomaaliyeed laakiin muslimiinta ku nool qurbaha runtii tan waxay ku noqotay yani ii sheegay dhibaato aad u weyn maanta qof rabo oo muslim mar in ilmihiisa iskuulka loogu dhigo yani nin wuu guursan karaa naag way guursan kartaa marka already hadda jaaliyadaha muslimiinta khaasatan jaaliyadda Soomaaliyeed waxay bilaabeen in ilmahooda ay u soo raraan wadamada islaamka sida Masar si bal loogu badbaadiyo fikirkan waxyaabahan LGBT-gan loogu badbaadiyo bal ilmahooda ay jaanis u helaan iskuul maadaama wax nadiif ah lagu baro iyo diinta lagu baro haddaad fiirsid Nairobi iyo Masar iyo wadamada Carabta waxaad arkaysaa qurba joog badan oo ilmahooda dib ugu soo celiyay marka hadda waxaan dhihi karnaa baahida in qurba joogta ay waddankooda dib ugu soo laabtaan aad bay u korortay sanadahan dambe markii sabaha jira aan sheegay way xoogaysataad leedahay
Cabdiraxiin ma qabtaan maaragtay dhalinyarahan ay idin soo jeediyaan dadkeena maaragtay qorax joogta ah ama dalka ku nool in aad dalka u imaataan keliya inay xilka qabataan in fursadihii maaragtay yaraayo dalka yaali aad qaadateen inaad businesskii qaali ka dhigteen waxaan la idiin soo jeedinayo dhegihiina ma soo gaaraan maxaad maaragtay kaga jawaabi lahayd arrintaas runtii eedahaasi dadka qurba joogta ah loo soo jeediyo runtii waa maqalnaa dee eed kasta lagu soo jeeday ma dhihi karti waxba kama jiraan wax un way ka jiraan laakiin qurba joogta runtii way jecel yihiin in waddankooda dib ugu soo laabtaan waddankooda isbeddel ay ka sameeyaan hadday noqoto in dowladdii ay galaan oo qof wuxuu soo bartay in dhanka siyaasadda uu galo waddankii markaad rabtay inaad waddanka isbeddel aad ku samaysid dee waxaa jira qaabab fara badan aad waddanka isbeddel aad ugu samayn kartid haddaad gashay sectorka businesska in waddankii business iyo wax investment aad kusoo kordhisid haddaad gashay sectorka siyaasadda in siyaasadda waddanka aad wax kusoo kordhisid isbeddel aad ku samaysid marka dee dadka qurba joogtana xaq bay u leeyihiin in siyaasadda waddanka ay ka qayb galaan xaq bay u leeyihiin in waddanka wax kastoo arrimihiisa ay ka qayb galaan xaq bay u leeyihiin marka lama dhihi karo waxay dib waxay u imaadeen in fursadaha yaryar oo waddanka yaal inay qaataan lama dhihi karo marka dee eed kasta la sheegan waxba waa ka jiri karaan laakiin si guud ahaan markaanan fiirino marka qurba joogta waxay rabaan in waddankooda dib ugu soo laabtaan inay isbeddel fiican ay ka sameeyaan maasha allah mahadsanid waxaan maaragtay sii gelaynaa barnaamijka dabeeqadiisa su-aashan waxay leedahay Cabdiraxiin ma jirtaa cabsi diimeed ee loo qabo ubadka xagga ku dhashay iyo ubadka ay sii dhalaan caqiidadooda iyo maaragtay mabaadi'dooda diineed cabsi loo qabo ma jirtaa aad iyo aad runtii taas way jirtaa waalid kasta ilmaha ilaahay uu siiyey yacni prioritka muhiimadda ugu weyn waxay tahay in ilmihiisa uu diinta islaamka uu baro oo ilaahaykiisa uu ku xiro marka qurbaha aad joogtid saa haddaan aan waraysi aan kusoo sheegay ilmaha fursad uma helaan in ay qur'aanka iyo diinta ay bartaan ilmaha 5 days laga soo bilaabo sabtida laga soo bilaabo sabti axad badan oo iska fasax laga soo bilaabo isniin ilaa jimco 8 saac ama 9 saac wuxuu jooga public school kaasna waxaa lagu baraa maadooyinkan secular waxyaabaha maadiga lagu bara bas ilmo gaalo ku dhex jira macallin gaala wuxuu dhigo maadooyinkan oo maadiga physics biology loo dhigaa marka sabti axad saacado kooban baa laga yaabaa in masaajidada la geeyo oo quraan loo dhigo taasaan enough aysan ahayn marka ilmihii wuxuu soo barbaaraya asoo diinta si fiican u baranin asoo caqiidada si fiican aan u baranin marka waxyaabaha aad arkaysid waxaa ka mid ah qof 20 jir ah yacni qof wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed qurbaha ku dhashtay 20 jir ah aanan garanaynin sida loo wees qaato aanan garanaynin waxyaabihii basic arkaanu islaamki iyo tahaaradii waxyaabo basic aan garanaynin runtii taasna waa khatar as awaalid ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta aakhir wuxuu ku weydiinaa waxa waaye ilmaha in diintooda aad bartay ilaahooda aad bartay tawxiidka aad bartay ilaahay kuma weydiinayo jaamacadda Harvard may galeen jaamacad Yale may galeen ilaahay kuma weydiinayo ilaahay wuxuu ku weydiinayaa ilmahan inaad يعني تربيدooda inaad diintooda rabbigooda aad bartay rasuul sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati dhamaantiin mas'uuliyad baa idin saaran ilaahan maanta aakhir mas'uuliyadda soo weydiinaya ilmahan mas'uuliyadda ka saaran ilaahan maanta aakhir mas'uuliyadda soo weydiinaya marka cabsidaas diimad way jirtaa sin hadii loo fiiro ilmaha iyagana eed ma laha li'annu fursad uma helin carabtu waxay ku maamahadaan kullu inaa bima fihi yundah yani baaquligan waxaad adig ku shubtid baad hadhow aad ka helaysaa baaquligan haddaan caano aan ku shubo hadhow haddaan u imaado caanihi baan ugu imaanaya soo maha laakiin ilmaha markay yaraayeen fursad uma helin inay quraanka ay bartaan diinta ay bartaan fursad uma helin iskuul oo public school ay ku jiraan maadooyinkan maadiga caadiga ay baranayeen fursad uma helin markuu weynaado markuu inuu masaajid galo oo sheekh sudeys ku noqdo xaafid quraan noqdo kama sugaysa ilaa fursadii ma siinin marka ilmaha wuxuu iska noqonayaa ilmo oo western iska noqonayaa diintii marna salaadii tukanayo marna salaadii iskaga tagayo foodiis ay dheer tahay marka runtii cabsida diimeed aad bay u jirtaa noona baahan in la xaliyo maasha Allah waxaad maasan tahay su'aasha xigta waxay ku leedahay barnaamijka ummadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay ummadda muslimiinta waliba kooda ugu firfircoon aad iyo aad kaalin nooceeha ay ku leeyihiin fidinta dacwada maadaama ay tagay dadka ugu badan ee degan ay yihiin Christian ama dadaan diin haysan